intaas quruxda iyo dareenkeeda ayay ka cabirtay laakiin aniga ma aha mid maanta igu cusub jacaylkan wuxuu ahaa mid muddo badan saameyn badan ku soo yeeshay dareenkayga maadaama ay sida tilmaamta sheegtay in sun loo cabayo anu waxaan taaganahay inaan jarka ugu dheer Soomaaliland aan iska tuurayo iyada la'aanteed horta jacaylku waa dareen ka dhasha aragtida wana boholiyo ku yeesha kalgacaylka iyo waa boholiyo daga qalbiga runtii inantaas quruxdeeda iyo sida loogu qushuucay ay tahay mid soo jiidasho leh aniga waatan hore kugu sheego maanta igu ma cusba laakiin waxaan ballan qaad sameeynaya inaan 150 geela ku meersado sidoo kale aan arooskeeda ka dhiso halka ugu caansan uguna quruxda badan geeyga Soomaalida ah buurta daalo haddii inta iyo inka badan ay igu soo xidhan waxaan ahay mid diyaar ah waxaad sheegtay inaad inantaa jacayl qaaday adiga hadii ay dalabaad kale ku yimaadaan xagga hablaha Soomaaliyeed iyada bal ka waran meed ku diidi doontaa mise soo dhaweyn doontaa waxaan labo waa mid iska daa hadii baan ku yiri adduunka waxa yaala la soo bandhigo kuma doorsanayo quruxda iyo kalgacaylka iyo booliyooga xiisaa iyo haya Samaara waystafow waxaad soo dhigtay xalay toole post Facebook isla markaana si aad u qarxay bal ka waran markaad falcelinta faalooyinka laga bixinayo xagga habluhu iyo raggu maxay kala doonayeen feedback iga soo noqonayay saameyntiisu lahaa waliba ha u badnaadaan xagga dumarka oo 80% aan oran karo inay yihiin maagitaan laakiin si anigu hoos ma neegin waayo waxa igala weynaa jacaylka aan sheegtay iyo fariinta ka soo noqonaysa waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed aad baa mahadsantiin wax kasta soo tiraadaan raali waan ka ahay way maxaa kamid ahaa waxyaabaha ay kugu maageen ama kugu dirayeen habluhu waxay badanaa igu maageen oo igu dirayeen gobolku joogo dalka uu joogo mid hablo ka waayay intuu jeclaanayo inanta halka joogta ama quruxda caynkaas miyaanu arkeen garbihiisa waxa taagan waxa weena laakiin waxaan leeyahay jacaylku waa mid ma halabo sax haddii aan jeclaaday inanta guraceel joogta waxay iiga dhigan tahay inay qalbigayga u helo tahay inay agteedana joogto way hablaha fariintan u diray waxa weeyaan aad baad u mahadsantahay